12 August oo ah maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa waxaa maanta si weyn looga xusay magaalada Laascaanood ee xarunta maamulka SSC Khaatumo. Wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha maamulka SSC Khaatumo ayaa soo qabanqaabisay kulan lagu xusayo maalinta dhalinyarada. waxaana ugu horeelkaasi ka hadlay wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha maamulka SSC Khaatumo mudane Dr. Jaamac Maxamed Mursal isagoona fariin u diray guud ahaan dhalinyarada SSC Khaatumo ugu baaqay inay maamulka SSC Khaatumo ay kala shaqeeyaan sidii loo horumarin lahaa maamulka iyo waliba sidii dhalinyaradu ay u noqon lahayd mid maamulkooda isgarab taagta. madaxweynaha maamulka Khaatumo mudane Cabdulqaadir Axmed Cali Firdhiye oo isaguna munaasabadaasi ka qayb galay isla markaasina fariin u diray guud ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed iyo waliba dhalinyarada SSC Khaatumo ayaa waxa uu sheegay in maamulka SSC Khaatumo uu madaxweynaha ka yahay ay horumarinta koowaad ay siinayso sidii dhalinyarada SSC Khaatumo ay door weyn ugu lahaayeen dib u dhiska maamulka SSC Khaatumo. madaxweyne Cabdulqaadir Axmed Cali Firdhiye ayaa geesta kale waxa uu fariin u diray maamulka Hargeysa ee Somaliland iyo shacabkiisa oo ugu baaqay inay ilaaliyaan daris wanaagga iyo waliba in aan colaad dambe deegaanada laga hurin. madaxweynaha ayaa waxa uu ugu baaqay in maanta maamulka uu hogaamiyaha ka yahay uusan marnaba duulaan ku ahayn dadka uu dariska la yahay. madaxweyne Cabdulqaadir Axmed Cali Firdhiye ayaa salaadiinta iyo waxgaradka iyo guud ahaan bulshadaasi maamulka Hargeysa ee Somaliland waxa uu ugu baaqay in la ilaaliyo daris wanaagga iyo waliba nabadgelyada.